waxaa dhacday hadda ka hor baa meesha Denmark la yidhaha tuula caasimadeeda Copenhagen u dhow Grinstead in la yidhaha baan u malaynaya barkii hore ahayd baa yaanu annagoo jamaaca dacwo ahoo ilaahay dartiis dhulkaa u maraysay baanu ahaynoo zaman hore ahaydoo masaajid meesha agteeda aanu joognay oo waxaa laigu yidhi xero halkana waxaa lagu hayaa ilmo yaryar oo yani da'da wixii 8 iyo 10 ka yar waa ilmo yar agtooda oo aan aabbe iyo hooyo lahayn oo berigaa waa berigii la isxambaari jiray nin baa fiisooyin soo qaadanaya maalan oo odhanaya 10 caruuraan dhalay uusan dhalin dabadeedna waa laga iibsanaya lacag baa la siinayaa dabadeed waa qaadaya oo kaxaynaya hooyadii iyo aabihii baa ilmihii dhiibaya ninayna garanin bay usii dhiibayaan oo lacag ka siisteen isaguna suu usoo wado intuu xeradaa geeyo ay odhanaya albaabka wakaa halkaa ka gala hana ii sheegina haddaad doontaanna sheegay cidna ma soo doonanayso ilaa waxay gaaladu rabtee المهم حرضاً المها سالوها يا بالليل الصومالية وان تقني هذه مركي أن قال لي وأن المه صومالي ذاها أن السكاني وأن دمعينا دي هذا الكي يوحي أن كل هذا أنا آد النحسن وآدي آد اللي توقع والبهرسن أن دمعينا الله هذا إسلامتي ماشى مشرف كأهيد مسؤول كأهيد إسلامنا ما هي كلمة إسلام تواتين ذي بصومالي وأسكا وديني waxay islaan shaqo kuma leh gaashi meesha mas'uulka ka ahayd lana islaan asalkeeda waxay ka timid muslima yani islaan yani muslima waxay ayaa ay timid af carabigay si wanaagsan u garanaysaa af carabi bay ugu hadashay waxay tiri ya sheekh anta turid tatakallam معهم بالدين دين بعد dadkan kala hadlaysaa miya haban diin ma kala hadlaya وحيتي كلام الدين ممنوع دين إن لقى هذا ميشن حرضا واك ممنوع مركزي ولي باستدراكتي وحيتي كل الدين ممنوع الدين الإسلامي ممنوع والدين المسيحي ممنوع واليهودي ممنوع ما في دين دين وحليل هالكلام ما قال المهاس هذا ربتين هذا شو وحات كلا هذا شاف فقط وحيالك لكن الدين هلا سو قادن أنا قلت لا يقعداتي حاسمية بل واي هيبان الخير يدو مركا وحان ويدي أفعربي حقتكو برتي بحيث أفعربي وحان كو برتي سوريا انتقي كورس بان سوقاتي أفعربي أساسا كو برتي أفعربي سيف عم بيو طبعا هل كاسي كرسي كو فريستي وحي إيقا إلالنا يسامركا إنان دين كو هضلو أنا مركي وبحان السري أف سومالي كو هذا له دي أف سومالي قرن بيسه وحاضرة عيالك وشك يا سيده سارس أف سومالي جيبان بالله دي أف سومالي جيبين دين كمرة هذا الكي يقول الرئيسي إلهي سبحانه وتعالى وريا جوك ورسو أنا منعتك من الدين أنت تتكلم عن الدين ويقبض إلهي سبحانه وتعالى لما قال هي عيالك مركع رير حمر بأوبن ضاين وحان الإلهي ما حدكم بدلي كرتا عن بهين وحو يري بهين وحو يري بركان مدبا سوبود بهين محاواي بهين مثلا عن ذيك كو قرن يا كاسر رير حمر ويو قرن ماي بهين محاواي بهن إلهي واي وليها جوق بإلهي جوق إلهي مشيكر إلهي ميشانكو مشيكرت سأن يالان قرن واي لما كلمة واسكوكين واي إلا الأف صومالي هو الدين والدين هو جزء من الدين ما جرت هذا الكوا هو ذكر واي ويدي واسكن لي سأل الله سأن يالان قرن واي مركا أي أركتي إن حل أنجرين بيتي أنا عندي حل ده واحد كلام شو شاقنا ماله يعني هو إن الدين كله هذا الربع واحد تري أنا عندي حل هاي تفضل واحد تري دقيسو حرانا أي دين ممنوع كتاعي كحيسو كل جود حاجات دقنت هاي مساجد كان دقنها مساجد كجيسو هالك كل هذا ما يوقع شيء هو كو قاله لكن ساعات أنا كسو دوام برد وقت إيقابت هذا ما حسوسته أبي النمدية وقت جاي أنا كسو دوام برد جيسو مشهد جوكتو وهذا رفتو سو شيء
laakiin inta halkan joogto diin waa mamnuuc waayahay baan waayahay shukran waa mahadsantahay ciyaalka baan warna keena gabdhihi waxay dhahaan annaga kuma raacayno kada masaajidii almuhim gabdhaha waxaan waa bal iga daran yahay inawadii wiilashii baan kaxay masaajidkii baan tagnay waxa yani aan u sheegi karay baan u sheegay aan muddaan soo wada joognay aad iyo aad baan uga naxay waxyaalaha ii sheegayaan waxay ii sheegayaan in ma garanaysaa in loogu talagal halkaa mid waxaa ku jira yani da'da uu isku dhiibay baa la yidhaha way xagga waxaa la yidhaha waa la isdhiibay isdhiib ilaahay un baa la isu dhiibaa makhluuq la isuma dhiibiyo weliba gaal fool cun oo inkaar qaba maxaad isaga dhiibaysa muxuu yahay aan ogeyn marka da'da uu isku dhiibay waa da' yar laakiin waa nin weyn oo garkii buuba soo xirxirayba marka markii aanu soo noqonnay meeshii aan nimid duq meesha ka shaqaysa oo islaan baan isleeyahay qof weyn oo meesha joogta oo gaalada ka mida ilmahoo dhan bay yay habsiinaysaa oo maaragtay xudniga gelinaysaa kii garka horlaana isagana waa iska qabsatay ilaa ilmo yar buu agteeda ka tirsan yahay marka waxaa weeye waxa ay ii sheegayaan oo ciyaalkaas oo khamriga meesha lagu siinayo iyo balaayada ay ku baranayaan iyo waxa loo fasaxa iyo wax hadda laga sheekayn kara ma aha waa wax habeenkii waan seexan kari waayey markaan hoyiyey oo meeshoodii geeyey waan seexan kari waayey dadkii soo dirsadayna waxay u soo dirsadeen inay maaragtay u dacwoodaan oo waalidiintoodii ay keenaan laakiin in badan oo iyaga ka mid a halkaasay ku baaba'een halkaasay ku tegayaan mukhadiraad baa lagu baraya khamir baa lagu baraya mukhadiraad baa lagu barayaa sidaa ay sheegayso baana dhab ah waxaa la rabaa in diin oo dhan laga tirtiro oo bilaa diin ay noqdaan new zealand waa meesha ugu horreysa ee qoraxda aragta wey new zealand baanu tagnay waa meesha ugu horreysa ee qoraxda aragta waxaan u malaynaya iyago qoraxda markay usoo baxda halka way dhacdaa wadamadan markay halkan ay dhacaysana iyagii usoo baxdaa waa meesha ugu horreysay qoraxda adduunka aragta baan annagoo saa u soconno majmuuco ah oo dharkayga aan iska qabo buu mid kuwa waddankaa u dhashay oo la yidhaha qabiil la yidhaaha muuri la yidhaha waa dad dhaadheer oo xoog badan laakiin indho yaryar way yar indho yaryar yihiin sida kalena sida shiinaha ma yaryare waa dad xoog la wey waxay ku nool yihiin dhulkaas iyo Australia iyo meelahaasay ku nool yihiin qabiil almuuri baa la yidhaha muuri bay dhahaan muuri kolleyba haddaan lafdiga saxay haddii kalena mid Australia ka yimid ama New Zealand kolley uu idin dhex fadhiyaa waan u malaynayaa almuhim waa dad bilaa diina waa wathaniyiin mid iyaga ka mid aan ugu soo orday waana salaamay waa noo qoslay aad baad ii cajab gelinaysaan buu yidhi quruxdiina iyo midabkiina iyo qabow bay ahayd oo anu bahal baan xidhnaa weliba bishtigaasoo ninkanaanba aada ugu sii quruxsan buu yidhi oo kana waa fiican tahay baan nidhi waa isa salannayo fursaan ka dhiganno waxay dhahay maxaad aaminsan tahay adugu waxba ma aaminsanin buu waxba ma aaminsanin oo aweyla ilaah maba jiro haye maxaa dhacay marka wuxuu daydayayaa mubarir wuxuu yidhi annaga haddaan qabaa'il almuuri haddaan nahay qaraar waxaan ku gaarnay inaan annana waxba caabudin maxaa yeelay buu yidhi barfiir hadda maxaa yeelay buu yidhi waxaan ogaanay buu yidhi adduunka in 4 ilaah ay jiraan ilaah walba qoluu sameeyey wuxuu yidhi qabiilkeenna muuri la yidhaha hal ilaah baana sameeyey shiinaha iyo kuwa indhaha yaryar ee gaagaabanna ilaah kalaa sameeyey caddaanka iyo wixii ma garanaysaa oo faranjigaana ingiriiska iyo wixii la halmaalana ilaah kalaa sameeyey ilaah afaraadna waxaa ka soo haray idinku aad ka mid tihiin carabta iyo middle east iyo wax ku nool kuwaasuu sameeyey kolka afartaasaa joogo afartaasaa looltan ka dhexeeyaayo iyagii baa dadka isku dirayo waxa dagaal adduunka dhacaya iyagaa sabab u ah marka saas awgeed waxaan qaraar ku gaadnay inaan afarta baan iska dhaafnoona midna caabudin ninkii mutarjimka ahaa ayaan waxaan ku idhi kow marka hore ninkan kaga nexi oo xaqiiqada kaga nexi oo waxaa tidhaha waad khaldan tahay you are wrong buu ku yidhi waad khaldan tahay waay maxaa jira maxaad saa ii leedahay waxaan idhi waxaan saa kuu leehay mid baa iga tarjamaya waxaan saa kuu leehay baan idhi qaacido khalad ah baad isku rakibaysaa qaacidadu waa maxay qaacidada adigu aad ka hadlaysa waxaa weeye ana tacadud almasnuucaat masnuucaadka iyo waxa la farsameeye la sameeyo
badnaashadooda iyo farabadnaantooda inay daliil u tahay saanicu inuu isna farabadan yahay wahada khata caqliguna maadi waa diidaya mithaal ahaan baabuurna ag yaalla toyotadan halka baabuurka halka yaalla sharikad toyota la yidhahdo samaysa imise nooco baabuur ay samaysaa baabuur waaweyn kuwa yaryar kuwa indho yaryar kuwa indho waaweyn kuwa anwaac kala duwan kuwa rakuuba kuwa xamuula laakiin waa sharikad hor soo ma laakiin masnuucaadka maxay u badinaysaa si ay kuu tusto awadeeda horta afar ilaah ma jire mid quraa jira waaxid bas si uu awooddiisa kuu tuso inagoo bani aadama kulligeen oo aragtida indhahan wax ka aragna wax dhegta wax ka arkaa ma jiraan hadday maqal noqotana dhegtaan wax ka wada maqalnaa muuri noqda ama shiina noqda ama jarmal noqda ama soomaali noqda dheg un baa wax laga maqlaa sanka wax ka maqlaa ma jiro afkaa wax laga wada cunaa lugaha lagu socdaa gacmaha wax lagu qabsadaa kulligeen inagoo saasa ayuu haddana na kala duway qaar madmadow buu ka dhigay qaar caddaan buu ka dhigay kuwa indha yaryar buu sameeyey kuwa indha waaweyn buu sameeyey kuwa wax dhaadheer buu ka dhigay kuwa gaagaaban buu ka dhigay wuxuu rabaa inuu ku tuso awooddiisu inay waasic tahay wuxuu raba uu samayn karo laakiin isagu waa mid qura wallahi mar qura wuxuu yidhi exactly hadalkaas waa sax idan marka waa ilaah waaxid baana ilaah waaxid haddaba laa ilaaha ila allah waa ogolahay laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah dheh baana laa ilaha illa allah laa ilaaha ila allah ilaah keliya wey mid kalean kugu darayaa baan kuwaan hadda soomaalida ah ee agtiina ku fara badan xaggee ka yimaadeen soomaaliya ka yimaadeen maxaa idin keenay waxaan idhi dayaraan diyaaradda min soomaaliya ilaa meeshiina taqriiban dhowr iyo 20 saacadood bay soo socotaa oo diyaaradda lagu soo balad leanna annaga oo qadar ka nimid ayaa waxaanu soconay taqriiban xawaali 20 saacadood markii la isku daray 20 saac diyaarad soo socotay maxay ka soo dooneen meeshiina wuxuu yidhi san problem baa jira waddankooda mashaakil baa ka dhacay problemkaas waxaa keenay baan idhi labaa isdagaashay laba iska soo horjeeda oo siyaasad isku khilaaftay baa intay isdagaaleen oy madaafiic isla dhaceen oo guryihii burbureen oo dadkii dhinteen bay soo carareen oo soo firxadeen oo agtiina yimaadeen waa sax buu yidhi waxaan afar hadday noqon lahayn ka war ama ka badan sidaasoo kale adduunkan dhulkan iyo cirkan iyo kownkan oo dhan ilaahyada aad sheegayso hadday jiraan dadka iskumay direene iyagaa isdagaali lahaa dabadeed samada iyo cirka iyo dhulkay burburin lahaayeen dhulla looma yimaadeen samana looma yimaadeen iyagaa ishardin lahaa oo isdili lahaa taas majaabkaygaan ka keenay qur-aankay ku jirtaay ma kaana macahu ma اtakhada allahu min waladin wama kaana macahu min ilaahin ida ladahaba kulu ilaahin bima khalaq walacalaa bacduhum calaa bacd subxaana allahi cama yasifuun subxaana allahi cama yasifuun ilaah kale ma jiro hadduu ilaah kale jiri lahaa oo sida ay sheegayaan gaaladu ilaah kale jiri lahaa idan ladahaba kulu ilaahin bima khalaq ilaah kasta wuxuu abuuray buu gaar u goosan lahaayo anigu dhulkaan abuuray agteeda anigu intanaan leeyahay intaas kabagooba bur isku dhufta buuraha iyo waxan walacalaa intaa kumay daayana walacalaa bacduhum calaa bacd qaarka kale ay ku maalgaranaysaa ku kibri lahaayeenoo ku qooqi lahaayeenoo ay dagaalami lahaayeen marka ilaah kale ma jiro ninkii inuu ilaah kaliya jiro waa qiray nebi moxamed see ugu sheegaa waxaana ilaahaas weyn jala jalaaluhu wacama nawaaluhu cadamadiisa iyo weynaantiisa nooma qalato inuu toos noola hadlo mid annaga naga mid a oo middle east meesha la yidhaahaa sacuudiya dhulkaas sacuudiya soo yaqaana ku dhashay buu noo soo saaray kaasuu risaalo noogu soo dhiibay oo yidhi ucbuduunii caabuda keligay baan ahay ilaah kale maligi an andiruu annahu laa ilaaha ilaa ana fattaquunii yunazilu almalaa'ikata biruuxi min amrihi calaa man yashaau min cibaadihi kii uu doono meeshuu doono ka doortaa an andiruu annahu laa ilaaha ilaa ana fattaquunii محمد baa la yidhaha salى الlaه عalيه wasalam tiina waa isla ogaa almuhim ninkii meeshay aan taagnayn ayuu shahaadateynkii ku qiray ashhadu an laa ilaaha ila اllah وashhadu ana muxamada rasuulu الlah halkaa kagamaanaan tegina waxaan idhi hadda masaajidkaanu u soconaa ina keen masaajidka buu inoo raacay hada min tawfiiq الlah caza